Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conversation kina waxa uu ku saabsan yahay jogging. Conversation about jogging. Ereyga jogging waxaa la yiraahdaa rucleynta. Qofku markuu soconayo iyo markuu ordayo waxa u dhexeeya waxa la yiraahdaa orodka tartiibka ah ee rucleynta ayaa waxa la yiraahdaa jogging. Inaad tartiib aad u ordid adiguna xoogna u ordayn aanan soconina waxa la yiraahdaa jogging. Hi, how are you today? Hey, sidee tahay maanta? Fine, thanks. Waan fiicanahay, mahadsanid. Boy, wiilka markaa su'aal weydiinaya gabadha wuxuu leeyahay, what do you do in your free time? Maxaad samaysaa waqtigaaga aad fariig tahay ood ama wax aadan haynin? Waxay ugu jawaabaysaa, actually I love cooking. Run ahaantii waxaan jeclahay wax kariska. I like waxaan jeclahay to make inaan sameeyo delicious food. Cunno aad u macaan. Delicious aad u macaan. And I love waxaan kaloo jeclahay waxaan jeclahay baking dubitaanka as well sidoo kale. Ereyga baking waa waxa la dubay canjeerada, roodhiga, wax la dubay waxa la yiraahdaa baking. Wiilkiiba hadalka qaadan wuxuu leeyahay nice, waa fiican tahay. That's interesting. Taasi waa wax mid xiiso leh. But I hate cooking. Laakiin waan necbahay wax kariska. Sidaa darteed I love cleaning. Waxaan jeclahay nadaafadda, wax nadiifinta because maxaa yeelay cleaning is relaxing. Cleaning nadaafadu is relaxing waa nasiino. And my house gurigayguna is usually very clean. Had iyo jeer waa mid aad nadiif u ah. Wahaga gabadhi ayna hadalka qaadanayso waxayna leedahay nice, my house is also clean. Way fiican tahay. My house gurigaygu is also clean. Sidoo kale waa mid nadiif ah. Wiilkii haddana qaadan wuxuu leeyahay but I think laakiin sidaan filayo the most of the people dadka inta ugu badan don't like cleaning ma jeclo nadaafadda. But some people laakiin dadka qaar ayaa believe aaminsan that cleaning is very good, in nadaafaddu ay aad u wanaagsan tahay like me sida anigoo kale. Waa hagaag next page. Gabadhii hadalka si qaadanaysa mar labaad waxay leedahay that is true, taasi waa sax. What else do you like to do? Maxaad kale oo aad jeceshahay inaad samayso? Ereyga else waa kale. What else maxaa kale oo do you like aad jeceshahay to do inaad samayso? Well, hagaag I like waxaan jeclahay exercising jimicsiga. I like waxaan kaloo ka helaa going to the gym, aaditaanka gymka. I like waxaan ka helaa listening podcasts. Dhegeysiga podcasts waxaa la yiraahdaa cashiro duuban oo maqal ah oo la dhegeysto. Podcasts cashirada la dhegeysto internetka laga dhegeysto. I like waxaan kaloo jeclahay surfing, inaan daalacdo the internetka. And sometimes mararka qaarna I enjoy reading books. Waxaan ku raaxaystaa akhritaanka buugaagta. I also enjoy reading. Sidoo kale waan ku raaxaystaa akhritaanka buugaagta when I have time, markii aan waqti haysto. But laakiin these days maalmahan I often listen, waxaan badanaa dhegeystaa audio books, buugaagta audio ah ee maqalka ah. Buugaag duuban ee maqal ah ee dhaga aad gashanaysid ee duuban ayaan dhegeystaa idhaahday maalmahan. Why do you like audio books? Maxaad ku jeceshahay buugaagta dhegeysiga ah? Because maxaa yeelay I can exercise, waan aalamiintayn karaa at the same time isla markaas. markaan dhegeysanayo waana aalamiintayn karaa. Dhagahaad gashanaysaa kadibna aalamiintadaada samaynaysaa. And I love waana jeclahay jogging, rucleynta iyo orodka. And I go jogging waxaana aadaa sidaa darteed waxaan aadaa jogging rucleynta everyday maalin walbo. Usually had iyo jeer for 1 hour hal saac. maalin walba hal saac ayaan jogging sameeyaa aan rucleeyaa. Sidaa darteed I can listen audio books. waan dhegeysan karaa buugaagta maqalka ah when I jog, markii aan rucleynayo. oo macnaha dhagayga anigoo igu jiraan oo buugaagtayda Englishkayga dhageysanayo ayaan haddana aalamiintadii sameynayaa. waa tahay page-ku dambeeya. Wow, so you can do, sidaa darteed waxaad samayn kartaa two things, laba shay at once hal mar. macnaha wayna aalamiintayne waxna buugaagna way dhegeysanayso maaha. markaas uu la yaab wuxuu dhahay so you can do two things at once. sidaa darteed waxaad samayn kartaa laba shay hal mar. ereyga at once waa hal mar. Yes, ay leedahay ha, because maxaa yeelay it's very important, aad ayay muhiim u tahay multitasking, shaqada fara badan. inaad laba shaqo isku qabatid waxaa la yiraahdaa iyo wax ka badan inaad hal mar qabatid waxaa la yiraahdaa multitasking. And I love it, waana jeclahay ay tiri. It sounds like you waxaad u muuqataa, waxay u muuqataa like you are good at, inaad ku wanaagsan tahay multitasking, howlaha fara badan, shaqada fara badan inaad ku wanaagsan tahay ayaad u muuqataa. New words in this lesson, ereyadii marka ku jira cashirka maxay yihiin? ereyga actually oo ah run ahaantii, cooking oo karin ah, baking oo ah dubid, hate oo ah nacayb, cleaning oo ah nadaafad,
relaxing oo ah nasino, exercising oo ah jimicsi, gym oo ah gymka caadiga ee la aado, listening dhageysi, podcasts waa buugaag English ah oo maqal ah oo duuban oo internetka laga helo oo la dhageysto waxaan kugu talinayaa inaad dhageysatid, suffering waa daalac, enjoy waa markaad shay ku raaxaysanaysid, reading akhrin, audio waa maqal, jogging ruclayn, important muhiim ah, multitasking shaqo fara badan intaas aynu ku eegay cashirkeena dadaal wacan.